isbedelkii weynaa magaalada Burco waxaana soo marnay qaybihiisa kala duwan waararkiisa shaybaarka dadka u tabaaleysan xumadan maanta dunida oo dhan ka dhacday iyo isbedelka maantaba guud ahaan horumar fiican oo ballaaran ayaa isbedelka guud iyo qaybihiisaba ka jirta shaqo badan oo aada iyo aada u qiimo u leh maalin walba waxaa soo kordhaya inuu hanto isbedelku dadka ku xidhan u baahan inay adeeg caafimaad ka helaan iyadoo maanta inta badan qalabka intii loo baahnaana ay yaalin waxaa ka dhiman in ay qorshaha ugu jiraan aanu rajaynayno inay si degdeg u soo gaadho marka la gaadho sanadka cusub waxaa mudan ammaan in maanta uu noqdo isbedelkaas oo isbedel lagu soo hirto hadday tahay qaybta guud iyo hadday tahay qaybta gaar ee maankaba ay tahay waa isbedel adeega ka socdaa uu yahay adeegii maanta dadku ay u baahnaayeen haddaan u imaado dhinaca maanka isbedelka waxaa jiifa sida warbixintan lagu siiyey 15 qof 15 qof oo u hoyda oo cuntadooda iyo hoygooda iyo dawadoodaba intaba uu qabo oo damaano qaaday isbedelka qaybta maanka damaano qaaday dhammaanna kharashka lagu isticmaalo ay bixisay wasaaradda caafimaadka iyadoo la kaashanaysa dad muxsiniina oo si gaara ugu deeqay oo ay ka mid yihiin dadka ka ganacsada shaadka ay si gaara ugu deeqeen miisaaniyad gaara ay ugu deeqeen dadka ammaanka ka xanuunsanaya waxaa uu noqon karaa qaybta keliya ee sida gaarka isugu filan karta insha allahu marka la eego iyadoo xanuunka dadka qaba ay badan yihiin laakiin inta itaalka wasaaraddu uu yahay waxaanu rajaynaynaa in aanu ku filaanno dadka adeega usoo doonta isbitaalada u yimaado waxaanu dhisnay 2 isbitaal oo cusub oo labada gobol ee Sool iyo Sanaag oo aanay waxare uga jiri jirin isbitaalada maanka baanu dhisnay haddana aanu ku soconnaa dhammaadayna lana soo xarig jarayo insha allahuna haddii alla yidhaahdo ka bilaabaya shaqadoodii ka bilaabaya dadka gobollada ku noole xanuunkaas uu helay waxa aanu rajaynaynaa in maalin walba wax soo kordhaan waxa soo kordhaana inay wax weyn ka bedelaan caafimaadka waddanka